madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar shaqo ku jooga magaalada Jowhar ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu xariga ka jaray dhowr mashaariic kuwaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu talagashay in ay ka fuliso magaaladaasi Jowhar ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xariga ka jaray dhowr wado oo ku yaala bartamaha magaalada Jowhar iyadoona markii dambe madaxweynaha iyo wafdigiisa loo soo galbay dhanka wasaaradda waxbarashada ee maamulka Hirshabeelle halkaasi oo uu xariga ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda waxbarashada ee maamulkaas Hirshabeelle. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu garab socdo madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa uu haddana soo gaaray wasaaradda maaliyadda ee maamulkaasi Hirshabeelle isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda oo uu heliyo Cali Guudlaaw Xuseen madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle uu haddana xariga ka jira dhismaha dib u habeynta lagu sameeyay ee wasaaradda maaliyadda ee maamulkaasi Hirshabeelle. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay socdaal ku mareen qaybo kamid ah wasaaradaha kala duwan ee maamulkaasi Hirshabeelle iyagoo u kuurgalayay wasaaradaha qaababka dhismaha goobaha ay ku shaqeeyaan sida loo shaqeynayo iyo guud ahaan bilicda goobaha wasaaradaha ee maamulkaasi Hirshabeelle. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray magaalada Jowhar ayaa waxa uu halkaas u tagay sidii uu u daahfuri lahaa mashaariic tirabeel ah oo federaalku uu sheegay inuu ka fulinayo magaaladaasi Jowhar iyadoona qorshaha ugu weyn ee safarkan madaxweynaha uu yahay sidii loo qancin lahaa shacabka reer Hirshabeelle gaar ahaan Jowhar kuwaas oo tabashooyin kala duwan ka muujinaya nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo afartii sano ee ay joogeen villa Soomaaliya oo ay sheegeen inaysan ka helin waxqabadkii ay u baahnaayeen. sidoo kale Hirshabeelle ayaa waxay ka mid yihiin maamulada tabashada xoogan ka qaba dhanka saami qaybsiga iyo wax soo saarka adeegyada kala duwan ee federaal ka yimaada iyadoona qaybo kamid ah beelaha wadadaga maamulka Hirshabeelle ay si aad u saluugsan yihiin siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku aadan dhanka maamulka Hirshabeelle. waxaa xusid mudan in Hirshabeelle ka sokow dhanka gobolka Hiiraan aysan iyo dhanka Jowhar aysan xiriir wanaagsan ka dhaxaynin oo labada beelood inta badanba u kala badan dhanka Hirshabeelle sida dhanka Jowhar iyo dhanka Beledweyne si aad ah ay isugu ciriirinayaan dhanka adeegyada iyo waliba habka maamulka maadaama reer Hiiraan ay ku eedeeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa inay meesha ku hayaan Cali Guudlaaw Xuseen oo ay sheegeen in iyaga tookadaasi ay xaq u lahaayeen inay maamulkaasi ay hogaamiyaan. waxaa xusid mudan in xiriirka ama cilaaqaadka madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle kala dhaxeeya deegaanada kala duwan ee maamulkiisa hoos yimaada iyo isaga inuu aad u yar yahay oo qaybo kamid ah deegaanada ku magacaaban maamulkiisa uusan tagi karin oo ay ugu horeyso magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dadkaas reer Hiiraan aysan ogolayn in ay la mucaamilaan dhanka madaxweyne Cali Guudlaaw Xuseen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. saami qaybsigii ama bilowgii horeba dhismaha maamulka Hirshabeelle oo uu sanadkii 2012 uu idibada u taagan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay dul hoganayeen iyo sheegashooyin badan oo dhanka beelaha maamulkaasi wadadaga iyadoona dhowr jeer caqabado kala duwan oo ka yimid la isku day in la xalliyo balse ay suuragal weysay oo sidaas uu ku dhamaaday nidaamkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee sanadkii 2012 in isagoon xallinin caqabado kala duwan oo reer Hirshabeelle ay tabanayeen gaar ahaan dhanka beelaha dega gobolka Hiiraan. intaas kadib waxaa 2017 February yimid maamulkii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo asagana isku dayay inuu waxaliyo laakiin ay suuragal weysay iyadoona ugu dambeyntii maamulkaasi gacantiisa uu ku baxay madaxweynihii maamulkaasi madaxweyne Waare iyadoo caqabadaha ay taagan yihiin ayaa haddana waxaa dhamaaday
waqtigii maamulkii madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo mar kale waxaa soo laabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markiisii hore maamulkaasi dhidibaa u taagay ilaa ay haddana waxaa taagan weli caqabadihii ay tabanayeen marka hadda safarkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa waxa ugu weyn waxay tahay maadaama wadanku xilligan doorasho uu galayo in campaign iyo lobbying halkaas looga sameeyo oo mashaariicdan la yiraahdo xisbiga JSB ayaa barwaaqo idiin sida waana qayb ka mid ah horudhaca iyo boorsamiitada ugu horeysa ee wax soo saarka doorashada ama ololaha ee campaignka xisbiga JSB oo ka mid ah xisbiyada xilligan ka shaqeeya dalka ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka soo laabto safarkaasi uu ku tagay Jowhar lama oga inuu caaw halkaas Jowhar seexanayo iyo in uu isla maantaba soo laabanayo laakiin waxay ilo xogaal noo sheegeen in ay suurtagal tahay inuu caaw seexdo birina wixii u dhiman uu soo dhameystiro kadibna uu soo laabto laakiin biri wixii ka dambeeya uu ku sugnaan doono ama uu soo laaban doono Muqdisho oo culeysay kari doon dhanka mucaaradka ay ka haystaan